السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروين يا مدنيال meel kastoo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warkii xidalka iyo dibadaba naga soo gaaray qodobada ugu muhiimsan warka idinku haynana waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta tacsiday dhammaan qoysaska iyo ehelada ka bixin boqolaal qof oo isniintii ku geeriyootay doonta qodobka labaadna waxa uu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa saaka qaabilay danjiraha cusub ee dalka Ruushka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay dib u dhac ku yimid Riek Machar oo la waday inuu gaaro magaalada Juba ee dalka South Sudan daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door kornaa imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta dhambaal hambalyo ka helay dhigiisa madaxweynaha jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha Xi Jinping kadib guushii madaxweynaha jamhuuriyaddu ka gaaray doorashadii madaxtinimo ee 8 bishan Abriil ka dhacday dalkeena madaxweyne Xi Jinping dhabaalkaasi waxa uu ku yiri aniga oo ku hadlaya magacayga gaarka ah iyo xukuumadda iyo shacbiga jamhuuriyadda Shiinaha waxa aan kugu hambalyeeynaa guusha aad gaadhay sidoo kale waxa uu ku yiri waxaan ku qanacsanahay mudane madaxweyne in jamhuuriyadda Djibouti ay guulo hor leh oo la taaban karo ay gaareen mustaqbalka madaxweynaha dalka Shiinaha waxa uu dhabaalkaasi ku xusay kulankii uu la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda ee shirweynihii Shiinaha iyo Afrika ee ka dhacay Johannesburg dalka South Africa bishii December sanadkii aan soo dhaafnay ee 2015 ugu dambeyn dhamaalkaasi madaxweyne Xi Jinping waxa uu ku tilmaamay inay ka go'an tahay xoojinta cilaaqaadka Shiinuhu uu la wadaago jamhuuriyadda Djibouti golaha raadioga iyo telefishinka Djibouti waxa wali ku soo qulqulaya dhambaalada hambalyada ee madaxweynaha jamhuuriyadda loogu talagalay dhambaaladii ugu dambeeyay waxa soo gaarsiiyay agaasimaha guud ee dhabaha xadiidka ee Ethiopia Dr. Getachew Hertu madaxweynaha xafiiska madaxa ilaahay xafiiska marketinga iyo masooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane Maxamed عرف gudoomiyaha ganacsatooyinka gobolka Cali Sabiix Xasan Sheekh Fuud wakiilada rugta ganacsiga agaasimaha shirkadda Owil Djibouti Tadase Tilano gudoomiyaha unuga xisbiga RPP ee xaafadda 7 mudane Ibrahim Maxamed Cabdu xogayaha guud ee sandikada dhabaha xadiidka Abdullaahi Muuse Waabari oo kamid ah xubnaha raad gudoomiyaha unuga RPP ee xaafadda Tirtruwa ee degmada Balbala Xasan Cilmi dhammaan dadkaasi oo dhan waxa ay madaxweynaha jamhuuriyadda ku hambaliyeen guushii uu ka gaaray doorashadii madaxtinimo ee 8 bishan Abriil ka dhacday dalkeena kaas oo madaxweyne Geelle oo ku hantay mar kale kalsoonida shacbiga jamhuuriyadda Djibouti sida aan qodobkii warkaba aan idinku soo sheegnay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta tacsideeyay dhammaan qoysaska iyo ehelada ay ka bixeen boqolaal qof oo isniintii ku geeriyootay doon ku qarqoontay badda Mediterranean dadkaasi oo u badnaa dhalinyaro waxa ay ka tageen degmada Geeska Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa walaac ka muujiyay tirada dhalinyarada ah ee naftooda ku weyday shilkaasi xun ee ka dhacay badweyntaasi Mediterranean waxayna dadkaasi u socdeen qaaradda Yurub madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa si kulul u cambaareeyay shabakadaha dadka burcadka ah ee ka ganacsanaya dhalinyarada u socodsa qaaradda Yurub madaxweyne Geelle waxa uu xusay in dhalinyaradani laga wacyigelinayo halista ay gelinayaan nafahooda iyaga oo raadinaya nolol kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka digay shilal soo noqnoqday oo ka dhacay baddaasi Mediterranean waxaana ugu yeeray dhalinyarada inay ka faa'iideystaan kheyraadka qaaradeena oo ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro kobaca qaaradeena sidoo kale waxaana qodobada aan ku soo sheegnay in ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed uu maanta ku qaabilay xafiiskiisa danjiraha dawladda Ruushka u qaabilsan jamhuuriyadda Djibouti Mr. Sergey danjiraha Ruushka ayaa hortaba uga mahad celiyay ra'iisul wasaaraha soo dhaweynta diiran ee uu fidiyay waxaana diblomaasigaasi dalka Ruushka madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku hamleeyay guushii doorashada madaxtinimo isagoo ka faa'iideysanaya kulankaasi danjiraha dalka Ruushka waxa uu xusay in dawladda Ruushka ay ka go'an tahay xoojinta cilaaqaadka labada dal kulankaas sidoo kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa uga waramay danjiraha barnaamijyada hore u marneed ee xukuumadda hirgelisay waxaana uu ka dalbay dawladda Ruushka in jamhuuriyadda Djibouti ay ka caawiso xagga sugidda ammaanka agaasimaha guud ee sanduuqa daryeelka bulsho Marwahana Farax Asoowe ayaa maanta laba heshiis la saxeexatay xarumaha caafimaadka ee Mutalis Hodan 14 iyo xarunta caafimaad ee Balbala ee Sheekh Muuse heshiiska u horeeya agaasimaha guud ee SNS waxa ay la saxeexatay
gudoomiyaha ururka Mutalis mudane Rashiid Cumar Axmed heshiiska labaadna waxa ay la gashay xarunta caafimaad ee Sheekh Muuse Marwo Nimca gudoomiyaha amba agaasimaha xarunta Sheekh Muuse Marwo Nimca Cabdullaahi heshiisyadani waxa ay qayb ka yihiin iskaashi u dhaxeeya sanduuqa daryeelka bulsho iyo xarumaha caafimaad ee dhinaca waaxda private ujeedada heshiisyadani ayaa ah mid loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan degmada Balbala ee shaqaalaha dawladda ee ku xiran xafiiska SNSta markuu qofku tago waa inuu horta shuruudiisii soo buuxiyo waa inuu kaarkiisii soo qaato isaga iyo xaaskiisana uu sajilo kaar dad badan oo waxaan aragnaa kaarkii iyagu qaatay laakiin xaasaskoodii iyo faamiyadoodii ay sajilin waxaan doonaynaa inaan ogeysino shacibweynaha inay dadka kaarka caafimaadka haysta aynan ahayn seenasastu inay daweyn karayso waxaan tusaynaa aan u jeednaa in qofku kaarka markuu haysto qolo kasta oo heshiis aan la leenahay aba ahaato xarun caafimaad oo dawladeed aba ahaato xarun caafimaad oo private mar aliya markaan xarunta la saxeexano heshiis inuu qofku tagi karayo qofka doonaya inuu ogaado wax inta dhaafsana number baan sameeynay 114 sonka toqsiga ku soo halay haduu wax fahmi waayo agaasimaha guud ee sanduuqa daryeelka bulsho Marwahana Faarax Xasuwe ayay ahayd kulan dib u habeyn loogu sameynayo qawaaniinta dalka u yaal xagga maalgashiga ayaa maanta ka dhacay xarunta wakaalada Djibouti ee dardargelinta maalgashiga kulankaasi waxa uu qayb ka yahay barnaamijka horumarinta waaxda maalgashiga iyadoo dalkeena lagu wado in la xoojiyo waaxdaasi kulankaasi waxa ka qayb qaatay agaasimaha guud ee wakaalada maalgashiga ee Djibouti mudane Mahdi Dharaar Cusiye iyo isku duwaha heerka degmo ee maalgashiga mudane Maxamed Cumar Dabar iyo mas'uuliyiin kale oo ay khusayso waaxdaasi xoojinta maalgashiga Jamhuuriyadda Djibouti wakaalada qaran ee kobcinta maalgashigu waxa uu la xiriiraa dib u habeyn lagu sameynayo sharciga u yaala maalgelinta wadankeena maxaa yeelay sharciga hore u yaalay maalgelintu waxa la sameeyay 1984 waxa dib u habeyn kooban lagu sameeyay 1994 halkaas waxa ka muuqata in baahi weyn taalay in dib loo habeeyo si looga dhigo mid la jaan qaada isbedelka dhaqaale dunida iyo dalkaba ka dhacay iyagoo halka ka dhaqaaqaya mas'uuliyiinta waddanku waxay garteen in sida u dhaqsiyo badan loo bilaabo dib u habeynta sharciga u yaal maalgelinta maalgelintiisana waxa laga helay mashruuc jabcada qurumaha ka dhaxaysa ay maalgeliso oo wadankeena uu kamid yahay wadanada loogu talagalay inay ka faa'iideystaan baa maalgeliyay dib u habeyntaas kullee waxay khusaysaa meelo badan oo kamid ah sharcigaasi wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha ayaa maanta si rasmi ah u dhaqaajisay tartanka kormeeraha ee wasaaradda waxbarasho tartankaasi waxaa maanta uu ka dhacay xarunta tababarka barayaasha CFFA oo ay joogeen agaasimaha tartanka waxbarasho iyo agaasimaha guud ee xaruntaasi Marwo Caasha Faarax guud ahaan 40 barayaal oo muddo 12 sano ka howlgalaya xagga baraha ayaa saaka u tartamayay imtixaanka kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarasho mudane Mahdi Cumar Faarax iyo taliyaha farsamo ee wasiirka mudane Cusmaan Ibraahim ayaa saaka soo kormeeray habsami u socodka imtixaanka kormeeraha ee dugsiyada hoose imtixaankaasi kadib wasaaradda waxbarashada ayaa ku tiro jirtay inay dhaqaajiso tartan u dhaxayn doona 48 bare oo xagga shahaadooyinka KFM-da wasaaradda ayaa qorsheysay in la howlgeliyo 10 kormeero oo dugsiyada hoose maanta waxay qabanqaabisay imtixaankaasoo ah qaybtii ugu horeysay tartanka lagu soo xulayo haddii abayda kormeerayaasha dugsiyada hoose enseignement de base waxaa loo yaqaan afka qalaad marka qaybtan maanta la marayo waa 4 saacadooda waa épreuve qura
وأقون جود وحلو يقنو كتير شنغال فرانسيسكا كوا إكزاما بروباتوار اتحان كانوا فصيح دونا وما ودبيرين دونا كونديدايدا عن هيسن اتحان كلا يلاحظوا كف ماذا إني وترتمان ترتنكا حول الشدا كورمرياشا أسبكتيردا حول أسبكتيردا والسينما إني دبازكا golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti waxaa ka qabsoontay munaasabad ballaaran oo baahda golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti ay u doorteen inay ku xusaan shaqadii cusleed ee muddadii ololaha doorashada madaxtinimo ee socotay iyo intii la isku diyaarinayayba munaasabadaasi waxaa hormood ka ah agaasimaha guud ee golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti mudane cabdulqaadir axmed idris waxaana u joogay dhammaan shaqaalaha RTD xafladaasi waxaa lagu bilaabay aayadaha quraanka kariimka intaasi kadibna waxaa ugu horeyn ka hadlay agaasimaha guud ee RTD mudane cabdulqaadir axmed diis waxaana hambalyo soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda oo mar kale hantay kalsoonida shacbiga 8 bishan intaasi kadibna xafladaasi waxaa laga tumay heeso ka xog waramaya waxqabadka madaxweyne Geele مسؤولكayga madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Alxaaji Ismaaciil Cumar Geele marwadiisa Khadra Maxamuud Xay waxaan u rajaynayaa nabad qab iyo caafimaad iyo cimri dharar isaga iyo rag la soo shaqeeyay halka ka sii hayo waligaaba sii hay baan leenahay adigana rabbigan ku weydiinay caafimaad iyo cimri dharar quraanka cadadkiisa ku soo salaamaya rabbigu waxa kula qabto cadawaaga Allah jabiyo daawadayaal waxaan bartamaha ugu jirnaa war wixii dalka iyo dibadda kala soo gaaray waxaana naga socotaan waa TV-ga qaran ee Djibouti wasaaradda caafimaadka ayaa geedi socod baaritaan caafimaad ku sameysay gobolka Carta waxaana baaritaanadaasi caafimaad fuliyay Dr. Axmed Roble oo ah takhasus xagga caruurta iyo Dr. Cabdi Daahir dhakhaatiirtaasi ayaa gaaray gobolka Carta waxaana halkaasi ay u sameeyeen baaritaano caafimaad oo hor leh dadweynaha halkaasi ku dhaqan waxaana baaritaanadaasi ka faa'iideystay boqolaal caruur ah haween iyo dad da' geedigani caafimaad waxa uu qayb ka yahay dadaalka wasaaradda caafimaadku ay ugu jirto xoojinta adeegyada caafimaad ee wasaaradda caafimaadku ay bixiso halkaas maanta caravan medical laga soo qabanqaabisay uu hormood ka yahay wasaaradda caafimaadka ministerka caafimaadka Dr. Qaasim Isaaq iyo taas ay ka kooban tahay caravan medicalkan kii indhaha iyo kii ciyaalka iyo medicine journalist taasoo maanta dadweynaha reer Carta aad ugu soo bixeen halkan aad loogu daweynayo
waxaasoo dhanna waa hindisaha caafimaad ee wasaaradda caafimaadka u dejisay sidii loo horumarin lahaa caafimaadka bulshada taasoo maanta ahaan loogu dhaadhiciyay ilaa magaalooyinkii hoose loogu yimid hay-adda diiwaanul sakaad ayaa ku qaybisay magaalada xarun goboleedka ee Tajoora lacagaha sakada ee lagu talagalay caruurta agoomaha munaasabada qaybinta waxa ay ka dhacday xarunta maamul goboleedka ee Tajoora waxaana u joogay mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi sidoo kale waxaa ka qayb qaatay dadweynaha ama caruurta loogu talagalay lacagahaasi ee agoomaha waxaana lacagahaasi ka faa'iideystay 140 qof oo helay lacag dhan 40,000 oo faranka Djibouti taas oo loogu talagalay in lagu caawiyo oo lagu garab galo dadka agoomaha iyo makaaliif intuba sidaa darteed ayaa waxa weeyaan aan ka arkaynaa inuu farqi weyni u dhaxeeyo intii kal hore ay sakadu ahayd iyo dadkii ka faa'iideystay iyada oo kal hore 160 qoys oo reer Tajoora ay sakada ka faa'iideysteen sanadan waxa ka faa'iideystay tiro runtii aad u fara badan ay sakadu aad ay u beertay marka alla markay sakadu beertana ay beerayso dadka ka faa'iideysanaya sida oo kale markii afraad iyo maanta oo taariikhda aan soo sheegnay iyadna lagu bixinayaa kafaaladii inta agoon ee ka faa'iideysanaysa kafaaladuna waxa weeyaan 76 agoon iyaguna maanta halkan lagu siin doonaa marka runtii taa kafaalada oo ay had iyo jeer iyadu 3 biloodba mar la bixiyo laakiin tan sakada sanadii mar un baa la qaadaa marka iyadoo runtii ay ka soo jawaabeen tujaartu khayr Allah siiye baaqii oo kafaalada markii maharajaankii agoomaha la sameeyay madaxweynuhu uu ku booriyay in ma arkaysaa sakada tujaartu ay bixiyaan runtii waa laga soo jawaabay xulka qaran ee dalka Soomaaliya ayaa soo gaaray Jamhuuriyadda Djibouti si ay uga ciyaaraan ciyaarta lugta labaad ee Sreebreebka koobka qaaradda Afrika ee da'doodu ka hooseyso 20 sano xulka qaran ee dalka Soomaaliya ayaa waxa maalinta Jimcaha nagu soo foodlay la ciyaari doonaan xulka dalka Itoobiya waxaana ciyaarta lugta hore ay ku dhamaatay 2 gool iyo 1 taasi oo ay ku guuleysteen xulka dalka Itoobiya tababaraha xulka qaran ee Soomaaliya ay da'doodu ka yartahay 20 sano oo aan waraysi la yeelanay waxa uu Jamhuuriyadda Djibouti uga mahad celiyay sida ay mar walba uga go'an tahay soo dhaweynta iyo martigelinta ciyaaraha xulka qaran ee dalka Soomaaliya telefisyoonka Djibouti iyo shacabka Djibouti ba haddii ilaahay uusan maya dhihin maalinta Jimcaha waxaan halkan kula ciyaari doonaa dalka Itoobiya oo aan hore uga soo ciyaarnay wadankoodii inagoo lugta labaadna ku ciyaari doona Djibouti oo ah dalkayagii labaad haddaanu Soomaaliya oo dhan banahayna maanta dalkayagiiba ah waxaan markaa aan shacabka iyo walaalaha reer Djibouti aan weydiisanaynaa taageeradooda buuxda waanu isku hubnaa waayo weligay nalkagama badin Djibouti waana lakaga badiyo Djibouti oo qoran nooga badisay cid kale nooga badisay lama arko Kenya kula ciyaarnay waanu ka badinay Rwanda kula ciyaarnay barbardhac baanu noqonay waxaanu kula ciyaarnay Djibouti waa markale kula ciyaarnay markoodan ka badinay marka Djibouti waa aqalkii guushiyada marka waxaan rajeynayaa haddii ilaahay ma yadhihin maalinta Jimcadan inaan guul farxad leh aan gabigan wada gaari doono marka waxaan walaalahay weydiisanaynaa taageero maalinta iyo garoonka inay soo camiraan si aan u dareenno anaga nafsigeedu dad dhulkoodii jooga walaalahood la joogayna wararka caalamkan ee ku hayna waxa kamid ah golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay dib u dhac ku yimid socdaalkii madaxweyne ku-xigeenka South Sudan uu ku tagi lahaa magaalada Juba ee caasimadda dalkaasi Riek Machar ayaa maalintii Isniintii aanu soo dhaafnay laga sugayay magaalada Juba taasi oo qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD ay ugu talagaleen in dib loogu ambaqaado wada hadalkii nabadeed ee labada dhinac ee South Sudan Fadma Cadaawe ayaa ka faalmaysa hogaamiyaha mucaaradka ee dalka koonfurta Suudaan Riek Machar oo laga sugayay maalintii shalay inuu soo gaaro caasimadda Juba afayeenka u hadlay ayaa sheegay
in uu safarkiisa dib u dhacay sababtoo ah arrimo la xiriira dhanka logistiga ah. Riek Machar ayaa magaaladaasi ka qaxay 2 sano ka hor markii uu bilaabay dagaalka sokeeye. waxaa loo maleynayay in loo caleemo saaro xilka madaxweyne ku-xigeenka ee bishii Febraayo loo doortay, kaasi oo qayb ka ah heshiiskii la saxeexay bishii August ee sanadkii tagay. hase yeeshee golaha qaramada midoobay ayaa ka walwalsan in dib u soo noqoshadaasi ay saameyn ku yeelan doonto ama ku yeelanayso dowladda midnimada qaran. Riek Machar waxa uu la midoobayaa kooxaha mucaaradka yaryar iyo xoogag kale siyaasadeed. dagaalka dalka koonfurta Suudaan ayaa sababay in 2 malyan oo qof ay ka barakacaan dalkaasi, halka 10,000 oo kalena ay ku dhintaan. dagaalkaasi ama colaadaasi ayaa waxa ay bilaabantay bishii December sanadkii 2013. dalka Mareykanka murashaxa madaxtinimo ee dalkaasi Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump iyo murashaxa madaxtinimo oo xisbiga Dimuqraadiga ayaa guulo hor laga gaaray doorashadii ka dhacday magaalada New York ee labadaasi xisbi ee Mareykanka ugu awoodda badan. Faatimo Cadaawe ayaa inoo soo eegtay falada warkaasi. israabraabka doorashooyinka hordhaca ay ku loolamayaan xisbiyada Mareykanka ayaa habeennimadii xalay ka qabsoomay magaalada weynta New York. Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa ku guuleystay. natiijadaha doorashada ayaa muujinaya in Hillary Clinton oo ah dimuqraadi iyo Donald Trump ku soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ay ka horeeyaan kuwa kale la tartamaya. Hillary Clinton ayaa si cad uga badisay ninka la loolamaya Bernie Sanders ay ka soo wada jeedaan xisbi midaas ah. waxa ay sheegtay in taageerayaasheedu ay jiraan ay wax badan ay qaban karayaan. sidoo kale Donald Trump waxa uu saray u qaaday rajadiisa oo ah inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ah ka hor kulanka guud ee xisbiga Jamhuurigu uu yeelan doono bisha Jubilee. dawadayaal qodobkaasi ayaanu ku soo afmeeraynaa war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay habeenkani caawa. intaan habeen dambe ku kulmi doono warkan mid lamid ah waxaan ku kala tegaynaa daawadayaal saas iyo nabadgelyo.